daawadayaal ku soo dhawaada waa qiso jacayl ah oo ka dhacday dugsiga sare ee magaalada Jigjiga waxay ku bilaabantaa farxad iyo nolol wanaagsan waxayna dhaxda u gashaa qaracan oohin murugo iyo waliba muraaradilla balse marka dambe waxay ku dhamaataa guul farxad iyo reyn qisadan daawadayaal waxay idin la socotinaya anigoo ah Nimcaan Axmed Cabeeye waxayna qisadani ka dhacday magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida daawasho wanaagsan waa aroor hore ardaydu waxay u dareereen dugsiyada dhulku waa barwaaqo waqtiga lagu jirana waa waqti degan ardayda wax ka dhigata dugsiga sare ee magaalada Jigjiga ayaa waxa ka dhex muuqda laba lamaane oo Ilaahay uu ku munaystay qurux iyo deganaansho waxaana la kala yiraahdaa Cabdifatax Axmed iyo Sare Jaamac labaduba waxay ka mid yihiin ardayda wax ka barata dugsiga sare ee magaalada Jigjiga Cabdifatax wuxuu ka dhashay qoys tan yar ah waxaana reerkoodu ku dhaqan yahay miyiga magaalada Jigjiga wuxuu la dhashay caruur badan nolosha qoyskuna waxay ku tiirsan tahay xaynta aadhiga ah oo ay caruurtu duleedka ku raacdo wuxuu waqtigan la nool yahay Cabdifatax habaryartii oo damaanad qaaday noloshiisa iyo waxbarashadiisaba Cabdifatax wuxuu Ilaahay siiyay garasho rabbaani ah aqoon ixtiraam iyo dabeecad wanaagsan waxaana jecel ardayda iyo macallimiinta oo ka helay dabeecadiisa wanaagsan iyo tacliinta uu ku wanaagsan yahay laakiin Sare waa gabadh ka dhalatay reer ladan aabaheedna waa xaaji hanti Ilaahay siiyay lagana dambeeyo magacna kula bulshada dhexdeeda haddaba Sare indhaheedu waxa ay hal mar qabteen wiilka quruxda badan ee Cabdifatax oo xishood awgii aan Sare kor u eegi karin balse Sare waxa qalbigeeda hal mar digay Cabdifatax waxaana isku dayday maadaama ay iskulaasiin inuu dhinaca waxbarashada ka caawiyo laakiin Cabdifatax wuxuu ahaa qof aan degdegin isla markaana ka fikiraya dantiisa iyo tareerkooda waxaanu aaminay inaanu heli karin hanana karin ama hawaysan karin Sare oo reerkoodu ladan yahay jacaylka Sare ayaa hal mar sida falaaraha qorraxda oo kale ah waxa ay taabteen Cabdifatax laakiin ma sheegan karo haddaba Cabdifatax waxa soo gaadhay dhibaato iyo aflagaada kaga imaanayay ardayda kala qaarkood kuwaasoo ku odhan jiray waa miskiin muxuu haystaa reerkoodu waa danyar ma isaga gaadhi kara ma isaga hawaysan kara arrintan oo noqotay jacayl xaasid ma waayo waxaase Sare marnaba aan maskaxdeeda ka meedhmayn wiilka ay jeceshahay ee Cabdifatax waxay arrintu socotaba Cabdifatax iyo Sare ayaa waxa ay hal mar wadaageen dhiilka caashiqa oo ay labadooduba si fiican uga dhargeen waxaana caan ka noqdeen dugsiga wax ku baranayeen balse waxaa ku bilowday cadowtinimo iyo xaasidnimo dhinacyo badan ka timid dhalinyaro badan ayaan jeclaan xiriirka wanaagsan ee Sare iyo Cabdifatax kuwaasoo iyagu isku daya inay waadaanta caashiqa hal mar oo la jiidaan Sare balse Sare waxay noqotay qof go'aan adag isla markaana wiilka Cabdifatax ka xulatay dhalinyarada kale Cabdifatax wuxuu macallin u noqday Sare waxaanu waxbarasho cusub uga bilaabay guriga Sare ay ku nooshahay ee quruxda badan oo wax waliba yaaliin waxay bartay hooyadeed oo markay Cabdifatax isha ku dhufatay Ilaahay raxmad u geliyay kana yaabtay akhlaaqdiisa iyo quruxda ka muuqata inkastoo duruufaha nololeed awgii ay yihiin kuwa ka muuqan kara labiskiisa oo ah kuwa duugoobay dantuna ay ku qasabtay laakiin Soomaalidu waxa ku mahmaadaa uskagna waa doqonnimo arradna waa dan wuxuu Cabdifatax ku dadaalay in dharkiisu ay noqdaan kuwa nadiif ah kuwaasoo soo saara quruxda Rabbi ugu deeqay ee ah jooga dheer qoorta dheer timaha jilicdasan sanqar iyo sanqaroorka dheer oo ishii aragtaaba marna aanay ka jeedsanayn waxaanu intaa u dheer xikmad iyo garasho Rabbi siiyay haddaba Cabdifatax waxay si fiican isku dhaxgaleen qoyskii ay ka dhalatay Sare waxaa la soo gaaray waqtigii imtixaanaadka Cabdifatax iyo Sare casharada ay baranayeen kasoo waxay labadooduba ay bartanka u galeen mawjado jacayl oo hirdamaya kuwaasoo qayb ka ah nolol maalmeedkooda xaajiga dhalay Sare waa uu u bogay Cabdifatax wuxuuna kula dardaarmay inuu Sare ka caawiyo duruusta iyo imtixaanaadka markii sanadkii gabagaba noqday fasaxii iskoolkana la galay Cabdifatax wuxuu go'aansaday inuu miyiga u baxo si uu aabihii u caawiyo maadaama lagu jiro waqtigii beeraha la qodayay markii uu Sare u sheegay waxa Sare laabteeda galay inay ka xumaato tegidda uu ka tagayo Cabdifatax miyiga waxaana ku tiri waxa ay la fiican inaad iska joogto taasoo dareen naxariis la ku tiri iyo cod macaan Cabdifatax la'aanta ma joogi karo wuxuu Cabdifatax ugu jawaabay wax yar ayaan ka maqnaanaya daawadayaal intaas waa qaybta koowaad ee sheekada waxaad la socon doontaan qaybta labaad ee sheekada